صل يا ربي على خير الورى أحمد المختار ضاها من على ثم آلنا مع صحاب كرما وهداتنا أتقياء فضلا أحمد الله تعالى شاكرا أن هدانا دين خير رسلا أحمد المبعوث فينا رحمة للبرايا مثل غيث هدلا لا فارتووا من ماء هدي المصطفى وسقاهم بعد نهل عللا ألا كما غاث الملتجي من كرب أو شفى جسما عليلا عاللا كما غاث الملتجي من كرب أو شفى جسما عليلا عيلا ألا قد أتاه له دينا قيما ناسخا يا صاحي كل الملل على صابرا لله دوما بالأذى متحاملا لعبء أثقلا على سيد ساد البرايا كلهم وسخي لا يرد سائلا أحمد من أتاه يرتجي منه العطاء أبى فورا بالمنى والآملا على وكريم وجواد جوده مثل جود ذا سيول سائلا الله عمد على كان نورا في جمال واضيا وارتفاع بل كشمس في الجلال على فهو نور الأرض حقا وسما وسراج المهتدين الفضلاء من على فيلبي ويخير المصطفى سجدا لله جل وعلا على يا إلهي ومليك منتهى
أملي أنت رجائي ذا العلا على صلوات الله ربي مع سلام من على المسك شذي الأنبلاء على مرتجى عثمان من خير الورى نظرة تسيله شاوى العلا يا ربي على خير الورى أحمد المختار على أحد أحد وغنى بمدي الحبيب المصطفى خير الملا على صل يا ربي على خير الورى المختار دهما على ربي على خير الورى أحمد المختار دهما على. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. runtii khayrkii loogu talagalay halkan iyo mid ka badan caawa waad aad iyo aad baa nooga dharjiseen kalimaad maaragtay ka bannaan halkan ma jiro. waxaan rabaa inaan fursaddan yartaa oo laysoo siiyey anigoo aad iyo aad uga mahad celinahay tashriifka aan ka dhigo mahadcelin aan u mahad celinahayo khayrkan badan ee dadaalka faraha badan uu ka muuqdo quruxda aan la soo koobin karin ay ka muuqato dal iyo dad iyo diinba anfaca u leh oo runtii aan la cajibay caawa halkan waxaa ka muuqda haddii la iga sheekeeyana aan si fiican sidaan maaragtay caawa uga dhergay aanan uga dhergeen. runtii aad iyo aad ayaan ilaahay ugu mahadinaynaa khayr badan allaha u jazeeyo intii sidaan uga soo shaqaysay waqti aada u adag duruuf aada u adag lagu jiro waddankeenna oo sidaanoo kaleeto iyo quruxdaanoo kaleeto maanta xaaladaha aan ku jirno ay adag tahay in la soo muujiyo ayaa soo muujiseen sabirkiinna iyo niyad adaygiinna iyo iimaankiinna aan la soo koobi karin la ku soo bandhigteen. waxay daliil u tahay maantay in guul dadka Soomaaliyeed taariikhdoodii diinta ee islaamka ee soo jireenka ahayd ee meel kasta looga soo duulay in la waxyeelayo inay nooshahay inaan halkaan maaragtay runtii aan xaqiiqo ay ku noqotay caawa.